بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أولا الله سبحانه وتعالى ما هذا ودن أسقناتي maanta noo suurtageliya inaan halkan aan ku kulanno uma waxaan u mahad celinaynaa dowladda federaalka hay-adaheeda kala duwan sida baarlamaanka xukuumadda madaxtooyada iyo dhammaan hay-adaheeda kala duwan hawshii ayaa laga qabtay mahad celintaas waxay ku socotaa matalaadii la helay ee gobolka muddo dhanna la sugaayey marka matalaadaas waa ka mahad celaynaa waxaa kaleetoodoo aan u mahad celaynaa iyadana oo aan la iloobi karin maamulka gobolka oo qaybihiisa kala duwan oo horkacaayo guddoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada mudane maxamed cumar finish iyo dhammaan gudoomiye ku-xigeenada iyo dhammaantood maamulka gobolka oo dhan juhdiga ballaaran ee la geliyey iyo dhammaan siyaasiyiinta kaleetood oo ama xilal hore soo qabtay ama hadda ahaaya dhammaantood wixii juhdi geliyey oo tacab geliyey dhammaantood waa uga mahad celaynaa haddaanu nahay dadka deegaanka ee gobolka banaadir matalaadaas runtii waa wakhti badanna waa la geliyey baarlamaankuna waa ku mahadsan yahay intii u codaysay iyo intii ka codaysaba waa ku mahadsan yihiin intii ka codaysa laftirkoodu wax dhibaata ma lahan baarlamaanku waa baarlamentary ma ahan marka in 100% wax la isku raaco ma dhacayso laakiin in aqlabiyaddu ay shaqayso oo meesha cod dheeriga oo la isku raaco waa muhiim intaas ka bacdi waxaan rabnaa barnaamijkan waa matalaad marka inaguna waxaan rabnaa inaan la daadejiyo oo hawshaas matalaadaasu ay shaqayso macnana ay soo kordhiso oo aysan naqanin wax inta la isku qabqabsado dadka lagu dhibaateeyo marka biidni illaahi tacaala hawshaas waxaan rajayaa dhaqanka iyo siyaasiyiinta iyo inta ay hawshaasu ay qaybtaasu ay qusaysana inay kaalintooda qaadan doonaan hadduu ilaah yidhaaho sida cadaalada oo dadka aan matalaada haysanin ay u heli lahaayeen sida loogu baarlamaanka ugu codeeyey inay dadka duubabka dhaqanka oo ugu horeeyaan duubabka dhaqanka iyo dhammaan waxgaradkao dhan inay dedejiyaan iyadana hawshaas dadka baahiyaha kaleetood qabana hawshaas lagu fududeeyo taasna saasaan ka leeyahay waxaa kaloo aan la iloobi karin iyadana tan waa matalaad maqaamkia iyadana aan rabnaa oo waa hadda tan waa dhiig joojin kaliya ma aha mid nagu filan marka waxaan rabnaa iyadana inay maqaamkii ay muqdisho maqaamkeedii hesho oo ay ku istaagto ay la istaagto maamulada kaleetood ay la falgasho xaquuqda ay leedaho dhammaystiranna la helo marka waa bilow fiican waxaan rajaynaynaa in biidni illaahi tacaala inta dhimanna naloo dhammaystiri doono hadduu ilaah yidhaahdo dowladdana waa ka rajaynaynaa inay hawshaas ay guddoomiyuhu gobolkuna ou arrintaas ou buushgareeyo dowladdana ay u dhega nuglaa doonto saasaan rajaynaynaa hadduu ilaah yidhaahdo marka waa mahad celinoo barnaamijkii ku saabsanaay wax kale ma ahan marka mahad celintaasaan waxaan la qabaa intii ka hadashay oo codkooda horay oo u baxay ayaan rabay inaan intaas ana ku biiriyo maadaama aan ahay duubabkii dhaqanka bulshadan dadkii matalayay aan ka mid ahay marka hadduu ilaah yidhaahdo arrintaasaan ka hadlayay waana wax fiican waana soo dhoweyha